بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والده waxaan kula wadaagi maanta saddex qodob oo awlaadana badbaadiya haddii ka caroodaan guriga ka tagaan insha Allah taala ku soo noqdaan. saddexdan qodob waxaanu ka dhaxlay oo noo sheegay walaalaha muslimiinta ee Mareykanka iyo qurbahaba nooga soo horeeyay, khaasatan walaalahan Hindida iyo Bakistaanta iyo Carabta wax la midka. saddexdaasaan idin soo koobaya. midka koowaad, ilmahaaga isku day adigu inaad iskuulka geyso oo ka soo qaado. muddada gaariga ku wado ama iskuulka aad ka soo wado, telefoonada iska dami, raadiyahan iska dami, iyaga la sheekayso. adigu sii kaxee, adigu soo kaxee, telefoonka dami, raadiyaha dami, la sheekayso. waxaad helaysaa 5 maalmood oo iskuulka ah iyo 2 maalmood oo dugsiga intaad u wada ah. 7 maalmood waa 7 maalmood oo ilmaha la sheekaysanayso oo maalinkii markay u yartahay saacad aad siinayso. waa wax aad u weyn. qodobka labaad, isku day salaadaha maghribka ama cishaha sitimaankii ugu yaraan 2 cisho inaad guriga ku jameecaysataan oo ama wiilka weyni ida tujiyo ama odaygu ida tujiyo. markay salaadu dhammaato idinkoo wada jooga astaghfirullah subxaanallahi wada dhaha. kadibna qof walba ha duceeyo, shanjirku ha duceeyo. ilaahu ha yidhaahdo yaa allah give us candy, ilaahu nacnac sayr, aamiin aamiin dheh. heblaaya ku xigta dheh, hebel baa ku xiga dheh. sameeya arrinkaas, xusuus ayuu ku beeraa. qodobka saddexaad, mar walbood qof la kulmayso ehel ama asxaaba, masaajidka ku ballama. markaad qofka masaajidka u tegaysana carruurta kaxayso inay maalinka 2 jeer ama 1 mar maqlaan mu'adinkooda ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah haya saameyn bay ku yeelanaysa. mu'adinka oo oranaya ashhadu an laa ilaaha illa allah, oranaya ashhadu anna muhammadan rasuulullah, oranaya hayya cala salah, hayya cala alfalah, saameyn bay ku yeelan. jameecada salaada galaysa saameyn bay ku yeelan. hooyooyinka waxaan oran lahaa, marba haddaad sheekaysanaysaan shaahina iyo sololkiina qaata, masaajidka taga, carruurtana ka haysta, ha ku ciyaareen, ha dhex ordeen, masaajidka hortiisa ha ordeen. arrin weyn weeyaan, saameyn bay ku yeelataa. saddexdaa qodob aan idiin sheegay waali waxaa bifadlillahi tacaala ku badbaaday oo noo sheegay walaaladii muslimiinta ahaa ee meeshan innaga 80 sano wax ka badan inagaga soo horreeyey. Wali legacy, it shines so bright, a rising star in the endless night. From roots so deep to skies so high, our name